geesta kalena isuduwayaasha wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo qaar ka mid ah culimada kala duwan ee magaalada Berbera ayaa maanta ka qayb galay aqoon isweydaarsi lagaga hadlayay sidii loo joojin lahaa FGM-ka amaba gudniinka hablaha iyo sidoo kale sidii looga hortagi lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka. aqoon isweydaarsigan oo ay soo qaban qaabisay dalada wadaniga ah ee Nafis Network ayaa waxa ay ka qabsantay hotel Barwaaqo ee magaalada Berbera waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay mas'uul ka socday dalada Nafis Network oo ka waramay kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay Soomaaliland. waxa weeyaan sidii aanu sameyn lahayn xog waraysi aan soo waraysan lahayn isla markaana oo ku saabsan gudniinka hablaha iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka kan nafis ahaan anagu markasta waxaan u taaganahay inaanu bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland meeshay doontaba ha noqotee aan wax kala qabanno wixii tacadiya ee dhexdooda ka jira. culimada kala duwan iyo mas'uuliyiinta ka qayb gashay kulankaasi ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyay waxaana tilmaameen inay muhiim tahay in laga hortago tacadiyada ka dhanka ah haweenka isla markaasina aan ogolayn shariicada iyo dhaqankeena suubani. sharciguna ma ogola in tacaddi lagu sameeyo naf bini aadama lab iyo dhadigba. marka waxaynu doonaynaa heerka uu gaarsiisan yahay sidii hoos looga soo dhimi lahaa iyagoo iskaashanaya wasaaradda caafimaadka diinta iyo waqaafta iyo arrimaha bulshada. wax badan waa laga dhiman wasaaradda diinta iyo waqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo doorkeeda ka ciyaaraysa masaladana sharci ku binaynaysa insha Allah dhawaan waxa soo bixi doonta fatwa wana markii ugu horeysay kulan noocan oo kala ah intii sanadkan uu bilaabmay lagu qabto xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.